dhakhtarka weyn ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo isagu ahaa dhakhtar guud ahaan u adeega gobolada bariga Soomaaliland ayaa tan iyo laga soo bilaabo dhamaadkii sanadkii 2013 markii ay halkaasi ka guurtay hay'adii gacanta ku haysay ee AMISF waxa uu la kulmayay xaalado iyo jawiyo ka duwan sidii uu dhakhtarku ahaan jiray waxaana guud ahaanba mar walba marka ka dambaysa hawada isku shareeray ay dhaanta iyo dhawaaqyada ka soo yeedhay shacabka ku dhaqan magaalada Burco iyo waliba shacabka gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan dadka danyarta oo ka dayrinaya xaaladda adag ee uu dhakhtarku marba madaxa la siigalay madaxweyne Silaanyo iyo xukuumaddiisa ayaa dadka reer Burco u sameeyay ballanqaadyo fara badan oo ku saleysan wax ka qabashada dhakhtarka magaalada Burco ee xarunta gobolka balse ma jirto wax ka suurtagalay arrimaha waxaana saakaaroornimadii u koorgalay xaaladda dhabta ee dhakhtarka magaalada Burco hawlwadeennada telefishinka caalamiga ah ee Somali News magaalada Burco iyagoo aanu la kulanay guud ahaan iyadoo ay albaabada isugu laaban yihiin xaruntii loogu talagalay in laga maamulo dhakhtarka iyo goobaha loogu talagalay inay fadhiistaan dadka neersinka ee u adeegaya dadka waararka ku sooyada laftigeeda aanay jirinin cid fadhida dhinaca kalena nadaafada dhakhtarka ayaa iyadoo ahayn mid wanaagsan marka loo sida uu dhakhtarku waayo hore ahaan jiray haddaba xaaladan adag ee uu la kulmayo dhakhtar ayaa iyadoo ah mid ka duwan waxaana aad xasuusanaysaa mashquul uu dhakhtarku ku sugnaan jiray waqtiyadii ay gacanta ku haysay hay'adda iyadoo guud ahaanba waararka waaweyn ee dhakhtar ay maran yihiin isla markaasina aysan jirinin cid halkaasi jeed marka laga reebo dad danyara oo awoodi waayay inay tagaan dhakhtarada gaarka loo leeyahay ee imika ay u bateen dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco adeegsigooda isku soo wada duubo xaaladda dhabta ee ka jirta dhakhtarka Burco ayaa iyadoo ah jawi aad u adag haddii aysan waqtigani wax ka qaban wasaaradda caafimaadka Somaliland ee uu hogaamiyo Xagla Toos iyo xukuumadda Silaanyo Zakariya Cabdiraxmaan Ibrahim Somali